Bismillahirrahmanirrahim. Lesson 6 and passage 6. How inoo marayay halkan si fiican aad ugu aragto haddii la yiraahdo waxaad samaysaa mobilka horizontal ka dhigo mobilka jiifi si videoga aad si fiican ugu aragto. Polite requests maxaa la yidhahdaa yani codsi asluubaysan. waxaan kusoo jirnay amar, jumladaha amarka oo imperative-ka ah. cashirka shanaad. Imperatives in English can be considered rude. waxaa lagu leeyahay imperativeska amarada luqadda Englishka can be considered rude. waxaa loo haystaa markaasi xisaabiyaa inay rude, xoogaa akhlaaq inaysan lahayn amarka. Words can be added to make them more polite. erayaa lagu sii dari karaa. hadda tusaalahaan ereygan fiiri: close the door, albaabka xir. yani waa please raaci, please close the door. Close the door waa amar caadi ah, laakiin amar ama codsi asluubaysan si aad uga dhigto please close the door. Just give me a minute please. Just give me a minute please. fadlan daqiiqad isii. Do come in, soo gal. Haye soo gal. Do the haye soo gal ay noqonaysaa. hadda kasii soco. buuggan waa very simple. duruustan hore waa laga bixi doonaa. duruusta dambe ama dhexdhexaadka page 25 aan hadda maraynaa. page 50 meesha lagu gaaro xaaladda markaasi in macawista kor loo soo laabtay noqon doontaa, laakiin aan soconno. waa English for everyone. buugta kalena waa bilaabayna haddii la yidhaahdo. jadwalna waa la soo saarayaa. Making suggestions with let's. marka in soo jeedino aad ku samayso suggestions with let's. It's sunny today. It's sunny today. maanta cadceed baa jirta. Let's go out. banaankaan aadno, aan soo baashaalno. gaaladaasi inta badan waxay aad u jecel yihiin waxaa la yiraahday aad u jecelyihiin cadceeda. It's sunny today. marka meesha aan anaga ka dhahno maanta jawiga waa degan yahay, waa qorax ma jirtee, aan soo wareegno. It's sunny today. Let's go out. It's cold. qabow baa jira. Let's not go out. banaanka yaynaan aadin. Simple present tense meeshaasaan uga soo baxnay. meeshan waxaan ka soo galnay tenniskan la yiraahdo the past simple. past simple waxaa la yirahdaa simple past tense. kii hadda aan soo dhaafnay wuxuu wax ka sheegi jiray fal mar walba dhaca. tenniskan past simple iska fiirso, meel ku qoro. wuxuu wax ka sheegaa fal tagay waqtigiisana la ogyahay. waa fal tagay waqtigiisa la ogyahay ayaa waxaa la yirahdaa past simple. The past simple is used to talk about completed actions. waxaa looga hadlaa marka isaga completed actions, fal dhamaystirmay, that happened at a fixed time in the past. kaasoo dhacay fixed time, waqti cayiman in the past. It's the most commonly used past tense in English. haddiiba laga hadlaayo waqti lasoo dhaafay, waa tenniska ugu badan ee markaasi la adeegsado. waa fal tagay waqtigiisa la ogyahay. Regular verbs in the past simple. yani regular verbs waxaa la yirahdaa ficilada ed-ga qaata. To form a regular verb ficil aana cilanayn, ficil markaasi aana cilad lahayn ayaa la yirahdaa regular verb. In the past simple ed ayaa lagu daraa. is added to the base form. fiiri, Walter ninka la yirahdo washed his car. gaarigiisuu dhaqday on Tuesday, maalinkii markaasi talaadadii. wash dhaqida ahayd ed aa lagu daray. waa regular verb. irregular verb isaa jiro ficilo ed aan lagu darin oo qaab kale ah.
waad fahmi doontaan badankiina waa taqaanaanba. How to form waa ka marka. Most verbs in the past simple do not change with the subject. Fiiri, I, you, we, they, he, she, dhamaantood fiiri. I played tennis yesterday. Fiiri, I played tennis yesterday. Shalay tennis baan ciyaaray. Intaasoo dhan I yani subjectiska dhan horgalayaasha oo dhan isku ficilay qaataan. Further examples. Last night, xalay, I watched a documentary film documentary aan daawaday about Italy, dalka Talyaaniga ku saabsan. Last Friday, jimcadii lasoo dhaafay, I danced with friends. Asxaabaan lasoo markaasi baashaalayo lasoo qoob ciyaaray. Tom usually drives to work, but yesterday he walked instead. Tom, ninka la yiraahdo, usually badanaaba drives to work. Drives gaari ayuu u kaxaystaa to work shaqada. But yesterday, laakiin maalinkii shalay ahayd, he walked instead. Powerka bedelkiisa waa uu lugayay shalay. Haye, Heather, haye, gabadha la yiraahdo, cleaned her bedroom. Qolkeeday nadiifsatay last weekend, khamiisii jimcadii lasoo dhaafay, before the party, xafladda ka hor. Tom, ninka la yiraahdo, shaved off his beard. Garka uu iska xiiray. Yesterday, shave off. Tom shaved off his beard garki waay. Tom shaved off his beard yesterday. Shalay garkuu iska xiiray. After work, shaqada kadib. Nia, gabadha la yiraahdo, listened to music bay iska dhageysatay. And started, waxayna bilowday reading a new book. Book cusub inay akhrisatona waa ay bilowday markaasi. Sii soco. Spelling rules for the past simple past fiiri spelling ruleska. Shuruucdaan faraha ka qaad waxba. Wash, washed. Dance, fiiri, wash, idiyaa lagu daray. Dance, isagaaba wataba, d kaliya ku dar. Try, isku dayida ahayd, ydiyaa la tirayaa, ydi waxaa lagu bedelayaa I, kadibna idiyaa lagu darayaa. Saasay waxay ku noqonaysaa past. Stop, fiiri, stopped, fiiri. Cashir hore waan kusoo marnay, haddiiba ed lagu daraayo ama ing lagu daraayo ficilada maaragtay halka shaqo leh. Hadda xarafkani in la laba jibaaro double p in laga dhigo maxaa keenay? Stop, one vowel ayaa ku jira. Marka sidaa darteeda haddaad aragto verb one vowel leh waa la laba jibaarayaa xarafka ugu dambeeya markii ed lagu daraayo. haddii ing lagu daraayo fiirad. Stop, stopped, stopptaas hadda ing markaan ku darayno p-dan ugu dambeysa waa laba jibaaraynaa. cashiro kale waan kasoo diyaarin doona haddii la waana soo socdaanba. Further examples, tusaalooyin markaasi sii dheeri ah. Jump, fiiri, jumped, arrive, arrived. يعني waa past formkii waa carry, carried, drop, dropped. fiiri. Work, worked, save, saved, cry, cried, hop, hopped. Hop waxa waaye in markaasi aad boodboodo xooga. Jump waa taqaanaa, waa boodida caadiga ahayd inaad soo ordood shay ka korboodo. Arrive waa imaansho. Carry waa qaadid. Drop waa dhulka ku ridid, tuurid. Work waa shaqayntii. Save waa badbaadintii ama kaydintii iska dheh. Cry waa ooyintii. Hop waa kaasaa marka waa boodboodidii. Play waa ciyaaridii. Decide, decided. Decide waa go-aansashadii. Hurry waa degdegidii. Step waa markaasi tilaabsashadii. Thank you. cashirkeena maanta intaasaan kusoo koobeynaa.